Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada sacad iyo cunto karis maanta insha Allah sidaa u jeediinba waxaan sameyn doonaa rooti aad iyo aad u fudud sameyskiisa marka kow waxaa weel ku shubanaysaa leebato qaandada oo cuntada lagu cuno oo leebato iyada dhan ma buuxdo waa haaf ay aheede iyo labo qaado iyo bar oo maaragtay oo sokor iyo biyo qandac iskula qasaysaa kadibna meelaa dhigana ilaa ay kaga soo qamiirayso xoogaa kadibna insha Allah waxaa sameysan doontaa burkaas iyo diyaarsanaysaa inta leebatada kusii qamiirayso leebatadan si fiican iskugu qas micna sokorta si fiican ugu qas si hadhow micna u dhalaasho kadibna waxaa isticmaalaa ani ahaan waxaa isticmaalaa 3 koob oo bur laakiin adiga insha Allah intii kugu filan isticmaal 2 koob waa isticmaali kartaa 3 koob ama ka badan aniga laakiin 3 koob waa dirta insha Allah isticmaali doonaa hadaba kaasa 3 koob bur kusoo shubtay kadibna wax yar cusbaa ku shubanaa cusbadana waa qiyaastaada adiga inta rabtida ku shuban kartaa burka inta sameysanaysid ay ku xiran tahay kadibna ma aragtay hal xabo kuna isticmaalay halka xabo kun marka ku shubay burka kadib waxaa ku shubaa leebatada iyo qasneede leebatada iyo sokorta iyo qasneede ayaa ku shubanaa burka insha Allah marka leebatadii wax iskula shubo burkii wax dhan aan ku shubo intaas wax yar isku qasaa kadibna insha Allah waxaa ku qasan doonaa aniga caano qandac hadaa rabin caano waxaa ku qasan kartaa biyo caanahana waxaa isticmaalaa koob maaragtay koobka oo buuxin saaid u buuxin koob wax yar dhiman iyo aniga waxaa isticmaalay subag oo cusbo laan 50 gram hadaa rabtid saliida isticmaali kartaa hadaa subaga rabin ani laakiin subaga isticmaalay oo 50 gram oo cusbo laan kadibna ma aragtay caanihi iskula qasaa hal mar caanaha ma ku gidinay ma rabi inuu saaid jilaac iga noqdo marka sidaas darteeda si dhexdhexaad jilaac saaidna ma rabi adagna ma rabi inuu iga noqdo marka sidaas darteeda waa inaa tartiib ugu shubaa saa u ogaado rootiga macnaha burka si oo ma aragtay jilaac saaid iga naqanin marka intaas hadirtaan sidaas oo yahay u jeediin wax yar subag dhinaaya ku shubaa kadib intaana iskula qasaa insha Allah si fiican 10 daqiiqo camaleeto ilaa 12 daqiiqo isku qasi doona insha Allah si fiican marka burka la isku dhex geliyo mar walbo quruxo ku naqana hadhooti rootiga jilaacna wuu ku naqana marka sidaas darteeda ha ka wehsanin wax badan qaso burka mar walbo ani 10 ilaa 12 daqiiqo qasaaya sidaan oo ii naqday insha Allah daboola saarana waa ii qamiira kadib maaragtay waa kana hada burkii markuu soo qamiiray sidaan u soo kacay maasha Allah gacanta ma ku dhegdhegooyo marka waxaa sameynaynaa hada burkii markuu soo qamiiray waa fidinaynaa weelkii aan maaragtay tamase saxankii aan ku fidi lahay meesha ku fidi lahay diyaarsanoya bur yar ku shubtay kadibna halahaas faliiqa ka dhigay todobo iyo ahay todobo maaragtay kuusa ka dhigay marka adi hadaa rabin rooti waaweyn inaa ka dhigatid todobo ka badan oo kuu naqon karaa 3 galaas oo bur marka waxaa sameynaysaa yaniinis la ka dhiganaysaa kuskuuska la yar ka dhigdhiga ani laakiin xoogaa waa weynay rooti waaweyn ka reebo macnaha oo dheer inuu ii noqdo marka sidaas darteed adeeg ugu xiran tahay sidaa ka dhiganaysid naqshada rabtidna mar walba rootiga u sameysan kartaa ani hadartaa naqshada u sameynayo waa idin tusaa insha Allah marka sidaas u fidiyo waxaa sameyn doonaa waa laabi doonaa dheer xoogaa ka dhiga marka sidaas u fidiyo marka geeska ka soo duduwa insha Allah sidaas u duuwa marka kulli sidaan u sameynaa naqshad kale ma sameynay adi laakiin kugu xiranta adi macnaha naqshada rabta u sameysan kartaa insha Allah marka saxanka foornada kula gali lahayna waa soo saartay marka rootiga dhan sidaan u soo fidina insha Allah marka sidaan u soo fidiyo isku soo naqad doona waa kana rootiga hadirtaan waa soo fidiyay waxaa sameynaa hadana waa sii qamiirina 5 daqiiqo camal meel sii dhiga xoogaa yar khamiir markuu soo yeeshto oo macnaha xoogaa yar kor u soo kaco waxaa sameyn doonaa ukuna marsan doonaa
ukunta hadaa rabin waxaa marsan kartaa caanaha dusha ka marsan kartaa rootiga qasab maaha ukunta hada ana hal xabo ukuna si fiican usoo garaacday micnaha si fiican usoo qasay kadibna rootiga dusha ka marmarinaa adi laakiin caana isticmaali kartaa insha Allah rootiga markaa sidan kulli u marmariyo ukunti waxaa sameyn doonaa sisin aan dusha ugu shubi doonaa rootiga sisinta aniga qurxin ahaan bis u isticmaalay wax gooni ah ma ku dubayso oo just way qurxinaysaa le rootiga laakiin adiga hadaa haysanin mase aad rabin inaad ku shubatid mase aad ku qurxsatid waa iska dhaafi kartaa iyadana qasab maahan laakiin qurux ay u yeelaysaa marka sidaas darteeda oo u isticmaalay sisinta rootigana marka sida sisinta ugu shubo foornada geli doonaa foorno oo kululeed geliya marka foornadana waa la soconaa gaduudkiisa macnaa waqti gooni maanan u geenin just inta gaduudanaysa waa fiirinaya leh marka sidaana waa naqatay maasha Allah qurux gaduud jileec oo ahaay wax walbana waa ku cuni kartaa rootiga marka insha Allah asxaabta waxaa rajeynaa inaad ka hesheen videogan asxaabta hada video ka hesheen ha hilmaamina insha Allah inaan like tii saartiin wixii fikradiinana comment igu soo qortiin hada channelka ku cusub tihiin inaad subscribe kii saartiin insha Allah ha hilmaamina si aad ula socotiin wax walba aan soo geliyo hada hore ila joogteen waa mahadsantiin asxaabta khayr iyo caafimaad ayaan idin rajeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh